sheekh maxamed siciid saaweer gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka awdal oo maanta khudbadii jimcaha ka akhrinayay masjid Uhud ee magaalada Boorama ayaa waxa uu fariinada u diray Suldaan Abubakar Cilmi Wabar waxaana uu ugu baaqay inuu dib ugu soo laabto magaalada Boorama. Suldaan Wabar waa suldaan reer Boorama fariin baan u diraynaa. fariinta aan u diray waxa weeye waa suldaankii jecelaynay aan dooranay waan ku ducaynaynaa inaad soo noqoto oo ummadaada u kaalaydo ummadii ku dooratay cilaha kaga tagin suldaankii keligii baxayna ha noqonin haday jabhada bixi jireen suldaan ma bixi jirin suldaankii keligii baxayna ha noqonin taariikhda galid waan ku jecelahay bulshadii ku dooratay baan ahayn arintii aan ku dooranay u soo noqo waan ku ducaynaynaa waa dhaxanta ninka tagay baadiyaha ka baadiyaha tagay waayo de waxa rasuul maaha rasuushu umba ku qasban inay buuraha galaan oo ummadda hogaamiyaan moogta gada burso dhan ma horan kartid dadkana waa dad tashay u baahayin ilaahay risaalo kuma dhig rasuulka ama dhigin waxa leenahay suldaanka Wabar oo suldaanka dooran oo jeclayna suldaan Abubakar Cilmi Wabar waan ku ducaynaynaa ilaahay baan kugu dhaarinay dadku way ku jecel yihiin war soo noqo hana cabsi gelinine war magaalada kaale mugta sidoo kale sheekh maxamed siciid saaweer ayaa dadweynaha ku nool magaalada Boorama ugu baaqay inay ka qayb qaataan taakulaynta dadka ay waxyeeleeyeen fatahaada webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne adduunyada masiibo markay dhacdo gaal iyo muslimba waa la iscaawiyaa Soomaa ataawun waa wax ka dhaxeeya wa taawunu cala birri wa taqwa war nimanka kale jaarka aan hayna ee Beledweyne war ka qayb gala oo caawiya oo siyaasad maaha mugta in la iscaawiyo kuba jirto muxuu ahaa waxa tasawaa gaar oo wax madax banaan in la iscaawiyo oo umada loo gurmado oo qofku wixii dareen shucuur islaami oo diro war wixii aad ku dareysana muxuu dadkana u dira ilaahayna dambigeena ha dhaaf ummadana waa ummad khayr leh adduunkana waxa isku wada xidhayo markaad waxa dhacay aragto qofkii damiirli u naxaya horta qodob mid kale adduunka si badan baa la isku caawiyaa ilayne inta laga qayb galo muxuu ahaa tacaawunka muxuu ahaa waxa la caawinayo ummadda dhibaatada ku dhacday ee walaalihina masiibada ku dhacday koba mid bay ku dhacdaa xitaa inaga waxay qurbayntu qoriyeen waxa soo socda la duufaan ba soo socda la taasi waa rajman bil qeyb ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo amiin dhahada duufaan ilaahay naga badbaadiyo laakiin waa waxyaabo badan oo la sii sheegay baa jira Absalaan Saha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.